عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan brief yar idin siiyo wixii soo kordhay 24 saac oo isugu kaaya dambeysay. Warbixinta guud ee xaaladda Covid waa sidan 28 April 2020. Xaaladaha cusub ee soo kordhay waxa waaye 48 xaaladood. Waxaa lab ah 31, waxaa dhadig ah 17. xaaladda soo kordhay goobaha ay kala joogaan waxa waaye Banaadir oo ah 41, Jubbaland oo ah 3 iyo South West oo ah 4. kiisaskii ugu horeeyay ayaa maanta laga xaqiijiyay Koonfur Galbeed, taasoo ka dhigan in dhammaan dawlad goboleedyada dalka uu ka jiro cudurkan viruskan kuna faafay guud ahaan dalka. da'da dadka laga helay waxay u badan yihiin 20 ilaa 39 jir, waxayna ka yihiin 65% dadka laga helay. tirada guud ee dadka laga helay guud ahaan wadanka waxay gaaraysaa 528. 24 saaca u dambeeyay Allah u naxariistay waxaa dhintay 2 qof. tirada guud ee dhimashada waxay isugu tagaysaa 28 qofood. waxaa ka bogsatay 5 qofood 24 saac ee ugu dambeeyay. tirada guud ee bogsashada waxay gaaraysaa 19. waxaa soo kordhay xaaladahan cusub ee Koonfur Galbeed. Jubbaland waa ka jiray, Somaliland sidoo kale, Puntland waa ka jiray. sidaan sheegnay guud ahaan wadanka meel walba maamul goboleedka waxaa laga helay xaalad ama ka badan oo ah coronavirus. wacyigelinta inaan ku dadaalno mar walba aanan ka daalin inaan sheegno in la kala fogaado, meelaha ciriiriga aan la tagin, dadka waayeelada ah xanuunada chronic qaba in mar walba laga fakiro oo aanan loo dhawaanin qof xanuunsan iyo qof looga shaki qabo, in gacmaha mar walba saabuun lagu dhaqdo iyo alcohol wax disinfectant ah si nadaafada kor loogu qaado. in haddii qofka calaamadihii ay takhaatiirta sheegeen laga wacyigelinayay mar walba uu qofka dareemo inuu qofka wacdo telefoonada loogu talagalay uu weydiisto waano iyo warcelin. qofka xanuunka markuu isku dareemo waa inuu tegi karaa goobta ugu dhow caafimaad. waxaan mar walba ku celcelinaynaa in dadka gurigooda ay ku cibaadaystaan, in meelaha ciriiriga la iska dhaafo, sababta oo ah cudurka waxyaalaha uu ku fidayo waxa waa isdhexgalka iyo isu dhawaanshada, is salaamida, ismaxabeynta. waxaa laga yaabaa qof aad u malaynaysid in uusan viruska qabin uu korkiisa ku jira viruska uuna gudbin karo. dadka waayeelada iyo dadka xanuunada raaga qaba waa in il gooni ah lagu fiiriyaa, in ma aragta caruurta banaanka laga celiyaa, guryaha lagu celiyaa. iskuuladii waa xiran yihiin, xafiisyadii waa xiran yihiin. dawladdu waxay ugu talagashay inay xanaano gaar ah siiso dadka guryahooda lagu celiyo si cudurkan uusan u fidin. cudurkan waa cudur fididiisa aad u sahlan yahay, nooga wada baahan bulshada qaybaheedoo dhan in ay mar walba ka taxadaraan oo ma aragta si kastoo loo xakameyn karo loo xakameeyo. waa ku celinaynaa dawlada naga waaweyn, naga teknolojiya badan, naga dhaqaalo badan ayaa runtii aad uga baaba'ay. annaga waxaan nahay dawlad soo korayso curdan ka soo baxday dhibaato dheer, caafimaad ahaan health sectorkeeda oo weli soo kabanayo, meel dheer ka soo dhaqaaqay. waajib ayay nagu tahay mar walba in laga fakero naftaada, inaad ka fakartid qofka familkaada iyo bulshada kale. waajibna wada saaran waa walaalayaalow aan ku dadaalno, hala cibaadaysto, laakiin si cudurkan loo xakameeyo guryaha lagu cibaadaysto, ilaahay ha loo dhawaado. ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkan inuu dhibkiisana mariyo islaamka oo dhan iyo qof walba. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.